kulan waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha xilliyadan oo kale aad daawataan waxaynu ku soo qaadanaa waxyaabaha isboortiga ka cusub ee maalinkaasi taagan sheekooyinka tartanka Euro America oo dib u soo laabtay wararka suuqa maxaa ka cusub maanta kooxda ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka farsamada iyo kaamiradu waa Fuad Maxamed Cabdulqaadir Xuseen ayaan ahay haddaynu ku bilaabnana tartanka Euro wareegiisa sidii dhamaadka ayaa xalay kulamo ka tirsan ciyaaray iyadoo oo xulka qaranka kubadda cagta ee Belgiumka gibi ahaanba tartanka oo isaga haray Talyaaniga ayaa u awood sheegatay xalay Belgiumka awoodoodii tartanka gruubyada wareega 16 xalay Talyaaniga ay dhaaf waayeen Belgiumka marka Talyaaniga ayaa iska xaadiriyay semifinalka tartankan Euro 2020 laba gool ayana kaga adkaadeen xulka qaranka kubadda cagta ee Belgiumka sidoo kalena kulan kale oo isla tartankan laga ciyaarayay Switzerland iyo Spain waxaa tartanka semifinalka u gudbay Spain kulan rigoorayaal 3 gool ay kaga adkaadeen Switzerland caawa kulamo xiiso badan tartankan lagu sugayaa in laga ciyaaro waa Euro 2020 wareegiisa sidii dhamaadka ayaana caawa la soo gabagabeyn doonaa iyadoo oo Czech Republic iyo Denmark kulan xiiso badan tartankaas caawa ay ciyaarayaan waxay kula midoobi doonaan Spain iyo xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga midkood tan soo baxda xulka qaranka kubadda cagta ee Czech Republic iyo Denmark tartankan wareegiisa semifinalka sidoo kale kulanka xiisaha badan caawa waxa u dhaxeeya oo indhaha lagu hayaa xulka qaranka kubadda cagta ee England oo wajahayo dhigooda xulka qaranka kubadda cagta ee Ukraine kulankan haddii si guud aynu u fiirinana kadib sugitaan dheer oo 55 sanadood ahaa xulka qaranka kubadda cagta ee England in wareega bugbaxa tartankan uu ku gudbo ayay kulan salaasadii dhacay oo Jarmalka wajaheen ay ka gudbeen marka hadal taariikh kale hortaal England oo dheer waxayna England ayaa mar kale isku day doontaa leeyahay inay u soo baxdo semifinalka tartankan markii ugu horeysay muddo 25 sanadood ah markaasina xulka qaranka kubadda cagta ee England 25 sanadood in tartankan semifinalkiisa ay imaadaan waa wax ku adaga leeyahay waliba tartanka Euro oo kale ciyaaryahanka garabka kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xulkan Bukayo Saka tababarkii ugu dambeeyay oo xulka qaranka kubadda cagta England dhaawaca soo gaaray laakiin xidigan waxay u badan tahay in xulkaasi uu u hintinayno laaciin badan ah xulka qaranka kubadda cagta ee saddexda libax kaga buuxa marka dhaawacaasi ku cusub England iyo Ukraine waxa ay ku kulmeenaa leeyahay tartan weyn hal jeer oo hore iyadoo oo saddexda libax waqtigaasna gool iyo waxba ay kaga adkaataa leeyahay xulka qaranka kubadda cagta ee Ukraine kulan ka tirsanaa tartanka Yurub wareegiisa gruubyada waqtigaasna waxaa goolka u dhaliyay xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga laacibkooda Wayne Rooney marka hadda caawa hadii xulka qaranka kubadda cagta ee England semifinalka u gudbaan taariikh xumiyay kaga hareysan meeshaas laakiin in caawa Ukraine ay dhaafi waayaan ceebtaasi way u sii aali doontaa tartanka Copa America qudhiisuna kulamo kale oo xiiso badan asigana ka soconaya iyadoo oo gabagabada tartankaasina lagu sii dhawaanayo oo semifinalka ya xulalku ay ciyaarayaan kulamadooda xalay kulamo ka tirsan al ciyaaray iyadoo oo Brazil tartankan wareegiisa xigay u gudubta Chile ka adkaadeen sidoo kale kulan kale oo laga ciyaaray tartankaasi waxa uu dhexmaray Peru iyo sidoo kale xulka qaranka kubadda cagta ee Paraguay caawa la sugayaa in Argentina iyo sidoo kale Ukraine iyo sidoo kale Colombia Ecuador midkood labadaas xul kala ciyaari doona semifinalka Argentina waxay caawa wajahaysaa xulka qaranka kubadda cagta ee Ecuador halka Ukraine ay wajahayso xulka qaranka kubadda cagta ee Colombia tartamadaasina waxay qayb ka yihiin tartanka America oo soconaya Brazil xalay Chile ka adkaadeen hal gool oo dirqiya ay kaga badiyeen waxa xusid mudneed in xulka qaranka kubadda cagta ee Brazil qaybtii dambe ee ciyaarta kambiyada dambe ee ciyaarta bilowgeedii xidig Manchester City u ciyaara weerarka kaga ciyaaray Gabriel Jesus lagu magacaabo uu Rosso ka qaatay laakiin xulka Brazil sidaasna way ku sii adkaadeen oo gool waxba ay kaga adkaadeen xulka qaranka kubadda cagta ee Chile tartanka way isaga hartay Brazil kulamadaasi ayayna caawa tartankaasi laga ciyaaraya oo Argentina iyo sidoo kale Uruguay iyo la sugayaa tartankaasi wararka suuqa deeno fiirinana maanta waxyaabaha ka cusub waxa leeyahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxay dhameystiraysaa leeyahay laacibka Brighton daafaca kaga ciyaara ninka lagu magacaabo Ben White kooxda kubadda cagta ee Arsenal laacibkan aad ay suuqa kaga doonaysay iyadoo oo dhowr jeer dalab ka gudbisay hadda waxa leeyahay istijiya laacibkan idinka iskale tartanka Euro oo soconaya soo gabagabowaa leeyahay laacibkan 23 sano jirkaan wuxuu qayb u ka yahay xidigaha xulka qaranka kubadda cagta ee England ku metelaya tartanka Euro 2020 oo caawa kooxdiisuba am xulkiisu ciyaarayo
marka Arsenal لاعبkan waxay leeyahay waa ay helaysiin tartiib isdejiye niyada loo sii qaboojinaya yani Mikel Arteta isbedelada suuqa uu ka doonayo kooxdiisu uu ka sameeyo لاعبkan qayb ka wararka Manchester United hadii aynu fiirinana tababaraha kooxdaas Manchester ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer wuxuu aad u kaga fiirsanayaa daafaca Real Madrid Rafael Varane in kooxdaasi Pogba uu siiyo in Rafael Varane uu soo qaato yani wuxuu isku miisaamaya labadan xidig kubadooda marka aadina waa adag tahay macquulaanshaha in Varane iyo Pogba isku bedesho kale laakiin Manchester waxay u badnaan doontaa in lacag loo raaciyo laacibkan waa hadii kooxdaasiba ay kala bedelanayaan xidigahan isla wararka Arsenal hadii dib ay ugu soo noqonayaan waxa leeyahay Arsenal waxay mar kale dalbay ka gudbinaysa ama ay xiiseynaysa laacibka kooxda Real Madrid aan iraadii laacibkii hore kooxdaasi Sergio Ramos ninka lagu magacaabo Ramos hadda Arsenal mar kale u wacanaysa oo waxay Mikel Arteta kooxdiisuba hadda waxay bilaabeen saraakiisha kooxdiisaba suuqa inay aad kaga kalluumaystaan laacibkan hadda waxa wada hadallo kula jirta kooxda PSG marka xitaa dalab 10 milyan ah kooxda Manchester United laacibkan ay ka gudbisay ama halyeeygan Real Madrid Sergio Ramos waa lagu soo celiyay Manchester oo laacibku wuxuu doonayaa in PSG uu ku biiro aaduna kaga fiirsanaya kooxda boosaska uu ka heli karo yani daafacyada kooxdaasi ay hayso taaliyaha marka Manchester Arsenalna warkaan oo kala ka cusub leeyahay in Ramos ay u dhaqaaqayso gudaana maanta barnaamijka naga inta tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaynu ku kulmi doonaa manaa Allah